iyakiina markaasaa lagu yidhi way hagaageen saddex shay baa la yidhi ummaduhu way ku dumaan saddexna ummaduhu way ku horumaraan oo way ku dhismaan saddexda ummaduhu ay ku horumaraan waxa weeyaan waa runta iyo ammaanada iyo cadaaladda saddexda ummaduhu way ku dhismaan ninkii doonay inuu ummad dhiso ninkii doonay qoys inuu dhiso ninkii doonay mujtamac inuu wax u taro bay culimmadu leeyihiin saddexdaa khasladood waa in laga helaa ammaano waa in laga helaa waxa lagu dhiibay ama reerkaaga ha noqoto ila nin walba reerkiisa waa ka mas'uul ama meherad qof leeyahay ha noqoto ama mas'uuliyad hoose ha noqoto ama mas'uuliyad ummadaad ha noqotee wixii lagu dhiibay waa in sideeda lagugu yimaadaa waayo ilaahay baa ku arkaya oo ku maqlaya amaana iyo sidqi waa inuu yeeshaa qofka muslimku sidq dadka run uu sheeg weligaa been ha sheegin oo nabigeenna calayhi salaatu wassalaam saxaabadu waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah ninka mu'minku fulo ma noqon karaa haa waa noqon karaa buu rasuulku yidhi ninka mu'minku ma aragtaanay bakhayl ma noqon karaa wuu noqon karaa buu rasuulku yidhi markaa baa nebiga lagu yidhi nebi allow ninka mu'minku beenaale ma noqon karaa markaa buu nebigu yidhi mu'minku beenaale ma noqon kara buu yidhi iimaanka iyo beentu isma galaan ammaano waa inuu qofka muslimku yeeshaa sidqi waa inuu yeeshaa uu noqda run sheege asidqu tuma'aniina buu nebigu yidhi walkidibu riiba beentu qofka shiki bay ku abuurtaa shiki iyo waswaas iyo cabsi bay ku abuurtaa halka runtuna qofka mu'minka ay siisa maaragtana nabad uu ku helo cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid halkaa baa shareecadda islaamku cadaaladda ka bilowday saxaabi baa nebi maxamed uu la yimiday inankiisii buu wadaa farasna uu wadaa markaa buu yidhi yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii carruurta isagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyeyey buu ka yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siina laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nebigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi anigu dulmi mara ka noqon maayo buu nebigu yidhi markhaati ka noqon maayo dulmigaad samaynaysa labada ilmoodeed wada dhashay ayay shareecaddu ku leedahay u cadaalad samee oo ka haw kale eexanin hadday noqoto wax siina dhaxal bay leeyihiin oo dhaxalkana looma dardaarmee nin walba dhaxalkiisu wuxuu qaadanaya suuratu nisaa iyo suuratu albaqara ilaahay jalla wacala uu kaga warramay saddexna ummaduhu way ku dumaan saddexda ummaduhu ay ku baaba'aan ay ku dumaan waxaa ka mida bay culimmadu leeyihiin saddexda ka soo horjeeda weeyaan sidqiga waxaa ka soo horjeeda waa beenta ammaanada waxaa ka soo horjeeda waa khiyaanada cadaaladdana waxaa ka soo horjeeda waa dulmiga inaad cadaalad yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad ammaano yeelataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad runsheega noqotaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad khiyaanada iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad beenta ka dhowrsoonaataa alla ka cabsi baad u baahan tahay inaad dulmiga iska daysaa alla ka cabsi baad u baahan tahay marka kelimaddan allaha laga boqo ee khudbad kastoo jimcaba lagu soo darayo lagu khatimaayo kelmad sahlan maaha hadday dadku ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka cabsadaan nolosha adduunyada waxay noo noqonaysaa janno ku sugan marka nolosha adduunyada janno allah inooga dhigo